الله الرحمن الرحيم وأحمد فارح علي ذاتا وروما يدلك طليانيga waa Febraayo 29ka sidii aan ballan qaaday waxaan halkan ku qabanayaa hadal aan u jeedinayo Maxamed Siyaad Barre oo markii iigu dambeysay gala joogay Soomaalidu sida laga warqabo sanadkii tagay waxay isweydiinaysay oo ku mashquulsanayd waxa uu Maxamed Siyaad gala ka qabto iyo sababta uu u joogo waxaan ku dadaali doonaa arrinta iyada ah inaan ka jawaabo isla markaasna aan soo bandhigo bal isaga iyo dadka uu la joogo waxa ay kala muteen hore u kala muteen waxa ay hadda iyagu ka qabaan joogitaankiisa iyo wixii hore ay isla soo mareen arrinta oo idilna waxay naga tahay inaynu runta arxinno waa tahay haddaan markii hore Soomaalida oo idil si guud ula hadlaayay hadda waxaan u bayrayaa sidaan ballan qaaday nin qura iyo dadka uu la joogo ee aan anigu u haysto inuu marti u yahay Soomaalida inta badan iyo shisheeyadoona ay u haystaan inuu maamulo ninku waa Maxamed Siyaad Barre dadka uu la joogaana waa mareexaanka degan gobolka Ballaaran ee Gadaleeyahay waxaa la isweydiin karaa maxaan Maxamed Siyaad qayb uga siinayaa cashiradan Soomaalida u wada socota maxaanse ula hadlayaa haddiiba uusan wax ku qaadanayn oo waana abuur baa ka horeysay la malayn karo inuu ku gacan sayri doono dhowr sababood ayaa igu wacan waa marka koowaad Maxamed Siyaad muddo dheer oo 20 sano ah ayuu dalkeena siduu doono uga soo taliyay burburka iyo xumada haysatana gacanta ugu weyn buu ku leeyahay isaga iyo kooxdii daacadda u ahayd ee halka aynu naal ina dhigtay waa marka labaad waxay dan iga haysaa shacbiga reer gadoodka ah ee 7 bilood ee aan gudaha dalka qaxootiga ku ahaa sida wacan in martigeliyay shacbigaasoo weli badankiisu ka diimoon yahay tabaaraha uu Aabasiyaad la maagan yahay iyo sida uu rabo inuu gees ugu fiiqo haddiiba ay dhacdo inay Soomaali xagga nabadda u xagliso danaheedana u soo jeesato waxaan qabaa shacbiga reer gadood inaysan awood u lahayn tabcooyinkii uu Maxamed Siyaad Soomaali oo dhan ku hayay inay keligood dusha u ritaan waxay kolka ila noqotay inay hiilkayga afba ha ahaadee ay u baahan yihiin midda saddexaad waa nin godab qabee waxaan u baqayaa isaga qudhiisa iyo ammaankiisa waxaan ka cabsi qabaa niman dhiiggiisa u haleelayaa inay maalin maalmaha ka mida isaga oo dagan gacanta ku dhigaan dabadeedna ay horgeeyaan maxkamad degdeg ah oo qabiil ka taliyo oo sida kuwiisii oo kale ragga garsoorayaasha ka ah iyo sharcigu ay kala xanaaqaan waxaan u diidayaa isaga oo keligiisa oo raggii dembiga la galay ay xor yihiin in la mindi raaciyo qabyaaladna igama ahee waa iga cadaalad jacayl maxaa yeelay waxaan qabaa dembigii Soomaaliya laga galay inuu ka badan yahay wax uu nin kaliya geli karo keligii taliye kastaba ha ahaadee midda kale waxaan ka afeefanayaa erayada aan u soo jeedin doono inaan digasho loo qaadan maxaa yeelay inkastoo aan ku doodi karin cadaalad darradiisii inaan ka nabad galay haddana xubnaha shacbigii uu cadaadiska baday waan ugu roonaa oo ugu yaraan cabsidu ha joogta ha ahaatee ammaankayga shakhsiga ahi halis badan ma gelin sababtan meeshii aad doonto ka soo saar haddaad rabto qabyaalad u malee kollay si kale yeeli mayside Maxamed Siyaad waxaan leeyahay si wanaagsan ii dhegayso inaad ii hagaagtana ha isku day hadda waa kacaandiid odhan maysid oo waa bog soo xirmaya maxaad igu odhan doontaa maxaadse u sheegi doontaa dadka reer gado ee aan aniga iyo iyaguba ognahay inaad martida u tahay adigana ay kula tahay inaad u taliso Soomaali badan iyo shisheeyuhuna ay u haystaan inaad maamusho casharadana markii ay ku soo gaadho waan malayn karaa waxaad ku odhan doontaa si ay eeda ayuu u shaqeeyaa ama waxaad ku odhan doontaa cali mahdi ama caydiid bay fariintu ka socotaa ama waxaad ku odhan doontaa waa ammaan raadis oo wuxuu doonayaa inuu xamar tago waxaan ku rajo weynahay intaba inaan lagaa koobin doonin oo awal in yar baa ku taqiine reergada badankiis iyo adigu aad hadda isbarateen bishii Febraayo 3deedii waa 1991 saacaddu markay ahayd 4 galabnimo waataan kuugu imid baaq dheere adigoo ay koox yari kugu ilaalinayso guryaha mashruuca fidinta beeraha ee magaalada ka yar baxsan markaan isa salaanay waataan noqonay labadeenna oo keliya
kolkaad waardiyihii ugu baaqday inay dibadda u baxaan sababta aad u saartayna allaa igu ogo weli waa iga diimoon tahay faskii dagaalkii xamar isagoo weli kaa muuqda waataan caafimaadkaaga wax kaa weydiiyey su-aashaydii igamaad jawaabine waxaad ila aaday xamar iyo dagaalkii waxaad tidhi anigoo sharaf leh ka tag waa tii la iga waayey anigoo la eryaayo ayaa la iga soo saaray waxaan ku idhi kow hadda maxaad damacsan tahay waxaad i tidhi adiga maxay kula tahay waxaan ku idhi ninka ragga ahi waa kii calool adaygi leh geesinimaduna waa inaad markii lagaa adkaado qirato in lagaa adkaaday waad aamustay anna waan aamusay oo waxaan ka fakarayay awooddii ku soo martay wixii sacab laguu tumay wixii lagu aabbaystay sidii ay tala kaaga hoostay ee tusaalaha waayeelka iyo waxgaradkaba intaad dhab u quursatay ay cadaaladda ilaahayga ahi shaqadeedii u qabsatay sidayna u aamusnayn cabbaar kadib waadigii adigu hadalkii xirmay furay waadigii la soo booday anigoo aan jeclayn oo ka xun ayaan qaxooti noqonaya waataan ku idhi wax kuu dhaama garan maayee sidaa iska yeer waataan raaciyey intaad soo shaqayn kartay waad soo shaqaysaye tegiddaada qaxootiha u qaado inay fenshan tahay waan xusuustaa oo sidaas baan ereyga ugu isticmaalay af ingiriiskiisa waatuu hadalkii haddana inaga xirmay waataan waayey wax kale oo aan ku idhaahdo waataad adigu haddana furtay oo babiskii yaraa intaad lowyaha saaratay igu tiri mareexaan aniga oo dagaalamaya ayuu iga soo tegey waxay la soo baxsadeen lacagtii iyo gaadiidkii ay kacaanka ku heleen waataad raacisay gunnimo doortee waa waxay ka helaan waa hadal dumar baa la yidhaahdaaye waxbaa qub i yidhi eraygu mahadidaad baan is idhi sidee buu mareexaan ugu ceelqali karaa soo ma aha kuwa ay soomaali oo idili daraaddiis ula collowday yaa sheegi kara guri ama qoys mareexaana oo kiisaba allaha ka dhigee aan taliskiisii eedin hadda cidda uu ku soo cararay ee uu maganta u yahay iyo wiilasha loo soo mari waayey ee uu ku hurdaa soo iyaga maaha muxuu ka rabay oo kale ma inay soomaali oo idin u jirib dhigaan oo uu wiilka ugu dambeeya masruufto ilaa uu inta iskiis u xanuunsado ay tii alla u timaado su-aalahaas oo dhammi waa kuwii isla markiiba igu soo dhacay xusuustayda oo keliyana kaaga soo guurin maayee waxaan kaashanayaa waraaqihii aan kulankeenna ku qoray habeenkii markii aan ku noqday baar dheere iyo halkii aan ka deganaa sow anigu ma ogeyne waxaa dunida lagu weydiinayo codti qaxooti iyo meel ku qaadata 5 casha kadibba waatay jawaabi timid talyaaniga abudabey iyo masaariduba waatay diideen magagelyo siyaasadeed inay ku siiyaan waataad garbahaarey oo aan deganaa timid 2 casha haddaad joogtay oo lagu sooray laguna loogay waataad odayaashii magaalada shirisay ka soo tashada inaan idinla joogo oo aad dagaalamaysaan reer hebelna aad xaqiidni ka soo dhacsanaysaan iyo inaan iska tago oo meel waliba way ii furan tahay aan idinka dhaqaaqo shirkii waayeelka iyo madaxdii gobolka waa kii uu goor fiid ah la isugu yimid waa tii ay had soo jeediyeen in lagaa codsado gobolka gado iyo dadkiisa inaad faraha isaga qaado oo aad Kenya gasho waa tii ay kale kaa diideen oo ku doodeen inaad la meel joogto inta kale ee xamar ka soo qaxday gobolkana soo gashay markii ay doodii dheeraatay oo dhinacna la isu raaci waayey waa tii min soo jeediyey inaan arrinta la cuslayn ama lagu kala jabine adiga dib lagugu soo celiyo laguna sheego go-aanka oo noqday tagna ku odhan mayno joogna ku odhan mayno labada kii aad dan moodo adigu ku dhaqaaq waa tii lagu heshiiyey in subaxnimada go-aankaa lagu sheego sidaasna waa tii lagu kala hoyday waa tuu intaan waagu bariyin go-aankaasi ku soo gaaray laguguna daray raggii bixidaada doonayay inay ka badnaayeen kana cadcadaayeen inta kale waataad farsamada badnayde isla habeenkiiba waadigii qalqaaliyey banaanbax taageero ah oo u eg kuwii xamar aad ka qalqaalin jirtay markii madax la xidho ama aad mucaaridnimo ka dareento xubno ka tirsan wixii golayaasha aad ku magacaabi jirtay waataad intaad gaariga u fuushay oo akhrisay khudbaddii gaabnaanta badnayd asii si walba ugu ekayd kuwii aad xamar ka akhrin jirtay bartamihii iyo dhammaadkii 80aadkii
waataan goobta joogay waxaan ka xusuustaa laba hadal oo soo noqnoqday dhowr jeerna 5 daqiiqo ee khudbadda socotay aad ku soo celisay. midi wuxuu ahaa kursigii madaxtooyo ma rabo inaan ku noqdo oo hadduu nafac iyo hibo lahaa soo maray. hadalka labaadna wuxuu ahaa kursigii madaxtooyo aniga ayaa xaq u leh oo sharci ahaan madaxweyne ah waana inaad dib iga doontaan. intaas waxaa weheliyey tirinta guulihii Oktoobar. maalintaasi maalintii aan bahdheeda kugu arkay waxaa u dhaxeeyey allaa igu ogo 4 casho oo keliya. maalintaas iyo 6 bilood oo ka dambaysay oo aan geda wada joognay hadalkaagu labadaa unbuu ahaa. inkastoo markii aad dadweynaha la hadlayso aad ku lahayd kursigii la iga qaaday idinkaa lahaaye ila doora oo xaqiinii la dhacay soo ceshada. marka min siyaasi ah ama waxbarasho leh aad kulantaanna waataad ku lahayd kursi waxba ku fali maayee waxaan u halgamayaa waa sharafta mareexaan oo meel looga dhacay inaan soo celiyo. hadalladaas iska hor imaadka badan markii aad goobo dhowr ah kaga dhawaaqday waa tay kordheen dadkii joogitaankaaga geda ka soo horjeeday. waa tii la bulaamay adiguna waa taad isku dayray inaad ku cayaarto ama aad danaqdo xididka qabyaaladda ee gobolka oo aad danqay og tahay. waa taad faafisay ragga iga soo horjeeda ee doonaya inaan geda ka tago waxaa lacag looga soo diraa xamar, lacag aan shilin ahayn dollar amerikaan ah. waa taad tidhi waxay raggaasi doonayaan hawiyaha USC-da sheegta inay i gacan geliyaan. dadka wixii makasta ahaa waa adigii kaxaysan ogaaye waa adigii doodaas ka dhaadhiciyey. waa taad ka fakirtay qorshe iyo dood kale oo aad joogitaankaaga geda ku sharciyeyso. cabdiraxmaan jaamac iyo warsame camoole waa taad afka ugu tirtay nairobi iyo gedaba inay ku faafiyaan inta aad gudaha dalka joogto inaan dunidu aqoonsan doonin dowlad xamar laga dhiso. waa adigii ku yidhi maxaa taa ugu wacan haddii la idin weydiiyana waxaad ku jawaabtaan waxaa ugu wacan joogitaanka madaxweynihii sharciga ahaa aabbihii ummaddu inta uu dalka ku jirana adduunyadu dowlad kale oo Soomaaliya ka dhisanta ma ogola. dad makas ah oo rag iyo dumarba leh aqoon darana hayso waa tii adiga iyo xoonka allaxda u tahay ay taa ka dhaadhiciyeen. wax yar kadibba waxaa dadkii loo sheegay inaan taasi run ahayn, duniduna ay dal iyo shacbi taqaane aysan dan ka lahayn keligii taliye dadkiisa ka hor dowladaha adduunka bari iyo galbeedba ay joojiyeen inay wax ku darsadaan, jabhadaha oo dhanna ku taageereen rididdiisa iyo kursikaqaadkiisa. waxaa dadkii loo sheegay oo raggii joogitaanka ay ka soo horjeeday ay ugu caqli celiyeen aqoonsi la-aanta USC-da inaan iyagu sabab u ahayn, inay iyagu sabab u yihiin aysan ku xirnayn joogiddaada iyo maqnaanshahaaga doona. waxay dunidu aqoonsataa dal xasiloon oo midaysan oo leh talis dhexe oo ay xukuumadaha hoose ee gobolladu ka amar qaataan, ammaankiisuna sugan yahay.